تأملات قرآنية. قرآن أحيا في قلبي نورا من بين الظلمات، أعطاني ثقة في ربي، أملا إيمانا وحياة، في كوني لا أيأس أبدا والحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، xalqadan walaalayaal waxaan ku qaadan doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala suuradan loo yaqaano suuratu al-casr. suuradan magaceeda waxa la yiraahdaa suuratu al-casr, waana suura makiya oo maka ku soo degtay sida u badan yihiin labadan juz amma iyo juz tabaarak suurkoodu. suuradan waxay ka kooban tahay 3 aayadood. suuradaha quraanka ku jira 114 suuradood, 3 suuradood ayaa 3 aayadood ka kooban. suuradan wal-casr waa 3 aayadood. إن أعطيناك الكوثر oo aynu soo marnay iyaduna waa 3 aayadood. إذا جاء نصر الله والفتح waa 3 aayadood. laakiin xagga xuruufta marka la eego suurada ugu gaaban xagga wax weeyaan xuruuf ahaan waa suurada إن أعطيناك الكوثر. suuradan waxay kale ku jirtaa suuradaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku furfurtay dhaarta wal-casr ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku furfurtay. waana suurada ugu horeysa suurka hadda aynu soo mareynay ee dhaarta Rabbi uu ku bilowday subhanahu wa ta'ala. 15 suuradood oo suuradaha quraanka ku jira ayaana Rabbi subhanahu wa ta'ala uu dhaar ku furfurtay. suuradan waxay ka waramaysaa khasaaraha dhabta ahi waa maxay, saliibaanta dhabta ahi waa maxay. Ilaahay wuxuu yiri wal-casri waxaan ku dhaartay, casriga ayaan ku dhaartay, waqtiga ayaan ku dhaartay, zamanka ayaan ku dhaartay, maalin iyo habeen ayaan ku dhaartay. innal insana insaanku la fi khusrin, khasaara ayuu ku sugan yahay dhammaystiran, illa alladina aamanuu mooyaane kuwii Rabbi rumeeyey وعملوا الصالحات عملذا وناكسن سميي أو فلي وتواصوا بالحق وحي وناكسن يحق يا خيرك اسكولا دردارمي وتواصوا بالصبر صبرك يا وناق إن وحويان يعني يحق إن وحويان لقد السجناده وحي دبا معاصنا لقد يراده أو لقد صبره أقدارت إلهي مصائب تقفك كل عيسنا قفك وكل صبره تدك يسدر دارمي مويانه مركز سورة وحي كورميسا خسارها ضبط إيه وامحي. suuradii aynu soo mareynay waylu likulli humazatin lumazan waxay ka waramaysay amalada khasaaraha keenaya waa maxay, xanta iyo diradiraalaha iyo namiimiyaha iyo wixii lamid ah. haraynu soo qaadan suuradan waxa ku sugan 4 arimood oo qofku uu ku badbaadiyo oo uu kaga badbaadiyo khasaarahaas. 2 arimood waa 2 arimood oo qofka naftiisa khuseeya oo ku saabsan, 2 arimoodna waa 2 arimood oo bulshada kale khuseeya oo la doonayo si jamaaciya in loo wada qabto. illa alladina aamanu wa amilu salihati, qofku inuu iimaan yeesho iyo amal saalix oo wanaagsan waa labada amal ee qofku isagu ku dhameystirmayo. labada amal ee dadka kale qofku inuu la wadaago u baahan yahayna wa tawaasaw bil haqq iyo wa tawaasaw bis sabr. xaq in dadka loo sheego waa dacwo ila Allah subhanahu wa ta'ala, oo khayrkii iyo wanaagii iyo hanuunkii dadka wax weeyla la jeclaado la doono. wanaaga iyo khayrka markaad sheegtana dib ba ku soo gaaraysa oo baadilkii ka soo horjeeday in wax weey lagu dhibo oo dadkii ahlu baadilka ay ku dhibaan. wa tawaasaw bis sabr iyaduna waxay baahantay sabr iyo dulqaad. 4 arimood cilmigii iyo amalkii. علمي محنو كقادني وحنو كقادن إلا الذين آمنوا علمي بقى حوي كجرة وعملوا الصالحات عمل كي لقوا عمل فلي علمي وتواصوا بالحق ودعودي وتواصوا بالصبر. أفرت الرمود وأفرت الرمود وكما قعب ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس إن انتهى حوي جهاد كي حوي نفط والنفط إنه حوي لا جهاده وحوي ينقفك ولقى وحوي جهاد إن أي تهاي حوي الرمهن إن أفرت الرمود عاد وحوي لقوا شيء. وحكى سورة عجيبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن سائر علماء المسلمين وحكسوا نقلي ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره كل سجى وجهري أنت أركي أنا وأنت طالع ابن كثير تفسير كيسو حكوشة قال الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة تذكر سورة هذا يوفي رسال لهاين ويكفي لنا الهيت مركا كل علماء متأخرين تدنبي وحي أسوا نقليان لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة. لكن لفظ ابن كثير كقرآن تفسير كيسا لو تدبر الناس هذا يوفي رسال لهاين تذكر هذه السورة لكفتهم ويكفي لنا الهيت وايو ليبانتي الدنيا ليبانتي آخره أردن بابا كجرت السورة ضنبا وإلهي سبحانه وتعالى وكجور من أفرتان الرموت إن يتهاي الرمها خير كأردن وحوي جمعينيا إلهي سبحانه وتعالى إنه حقيقيو الرمها خير كضدك وحوي هلي لها إلهي سبحانه وتعالى إن قامت والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.